بسم الله الرحمن الرحيم. digaagu waxay ka mid yihiin boqortooyada xayawaanka Animalia, bahda lafdhabarleyda ah Chordata, gaar ahaan bahweynta qooleyda Aves. Sidoo kale waxay ku jiraan qoyska hoose ee shimbiraha xajmi ahaan culus Galliformes, kuwaas oo ay ka mid yihiin digaaga Turkiga iyo digriinka. Bahda cilmiga sayniska waxay ugu yeeraan Gallus domesticus. Asal ahaan waxay ka soo jeedaan qaaradda Aasiya, gaar ahaan koonfur bari Aasiya. barashada cilmiga digaaga iyo shimbiraha waxaa loo yaqaanaa ornithology. Luqadda Ingiriiska waxaa loo yaqaanaa chickens ama poultry, halka Carabiga loo yaqaano dajaaj. Afka Soomaaliga guud ahaan waxaa loo yaqaanaa digaag, midka labka ahna diiq, midda dhediga ahna waxaa loo yaqaanaa digaagad ama dooro. Adduunka waxaa laga helaa 500 digaag oo kala duwan dhanka xajmiga iyo dhererka, inkastoo guud ahaan digaaga u qaybsamaan 7 nooc oo kala chicken, turkeys, guinea fowl, geese, duck, quail iyo pigeons. Heerkulka jirkoodu waxa uu u dhexeeyaa 40.5 ilaa 41 digrii. Digaagu waxay leeyihiin 78 hiddo-side, waxayna quutaan waxyaabaha ka soo jeeda dhirta iyo xayawaanka maalintii omnivora. Digaagu waxay ka mid yihiin xayawaanada leh dhiigga diiran iyo kuwa leh habdhiska dheefshiidka ee shimbiraha oo kale. Digaagu waxay ku qaangaaraan 4 ilaa 6 bilood. Beedka waxay ku dhalaan 24 ilaa 26 saacadood. Inkastoo aanay badnayn, haddana marmarka qaar waxaa dhacda digaaga qaar inay 2 beed maalin keliya dhali karaan. Sanadkii qiyaas ahaan waxay dhalaan digaagu 250 beed. Guud ahaan digaaga 3 nooc ayaa loo kala saaraa: qaar beed ahaan loo dhaqdo, qaar hilib ahaan loo dhaqdo, iyo qaar loo dhaqdo labadaba, kuwaas oo marka ay gaboobaan hilib ahaan loo isticmaalo. Digaaga ku nool dhulka Soomaalidu waxay dhalida beedka ku joojiyaan 12 ilaa 14 bilood, halka qaar kale oo digaaga caalamka ku nool ay ku joojiyaan 6 ilaa 7 sano. Digaagu markay muddo joogaanba waxaa laga jaraa afka hore si aanay isugu dhibaateyn. Qalabka lagaga jarana waxaa loo yaqaanaa debeaking machine. Digaaga waxaa loo dhaqdaa 2 nooc oo keli ah guud ahaan: in meel lagu sii daayo oo ay iska soo qaraabtaan iyagoo aanu qarash badan la gelin, iyo in meel lagu xareeyo oo si gaar ah loo xanaaneeyo, qarash badanna la geliyo. Hadday Soomaalidu shanmeysi oo keli ah waagii hore u taqaanay oo manaafacaadsan jirtay, waqtiyadan dambe waxaa la ogaaday in digaagu leeyihiin faa'iidooyin badan oo kala duwan sida dhaqaale, hilib, iyo beed qani ku ah borotiin badan, subag, baalal loo adeegsado qurxinta, iyo saxaradooda oo loo fasho beeraha. Ugu dambeyntii, sida Nabiga sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyay xadiis uu micnihiisu ahaa marka uu diiqu ciyo in uu arko malaa'ig, halka marka uu dameerku ciyana uu arko shaydaan. Sidoo kale waxaa jira xadiis kale oo uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam ku sheegay in aan diiqa la caayin, waayo wax uu dadka u toosiyaa salaada, ama waxa uu ugu yeeraa salaada. Digaaga adduunka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 22 bilyan. Dalka ugu badan ee lagu dhaqdana waa dalka Shiinaha.